golaha deegaanka ee degmada Shiikh ayaa jawaab ka bixiyay eedo dhawaan ka soo yeeray ganacsatada gobolka Togdheer kuwaas oo ku eedeeyay in cashuuro laga qaado baabuurta ganacsiga ee isaga kala goosha magaalooyinka Berbera iyo Burco. maayar ku xigeenka degmada Cabdi Cartan Xaaji Abakar iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ayaa sheegay in aan cashuur laga qaadin gaadiidka isaga kala goosha gobolada Togdheer iyo Saaxil. waxaana ay sheegeen in gaadiidkaasi laga qaado lacago service adeeg loogu talagalay dawga buurta magaalada Shiikh oo ay had iyo goor ka dhacaan shilal kala duwan. waxaan leeyahay Shiikh waxa cashuuro lagu qaadaa haba yaraatee ma jirto oo qolada hadlaysa ganacsiga isku sheegaya dhaawac iyo dhimashadooda iyo baabuurtooda iyo alaabtooda iyo lagaga shaqeeyo ayuunba waa service kaliya waxa ku soo kordhay marka neefka 100 laan ayaa baan ka qaadi jirnay 100 laan wuxuu gooyo waa la yaqaan wuxuu gooyaa 100 laan koobkii baa 1500 100 shilin oo laana xalaaliyo xujara ma jirto gaaliga rarana xagga Berbera ka yimaadana 10000 oo laana laga qaada ayuu ka qaadi jiray waxa ka jirmad taas way socotayado kaliya waxa ku soo kordhay 100kii laanka ahaa waa 100 laano waxaan 100 shilin oo Soomaaliland ma aha 100 maaha waa 100 shilin waka xalay baabuurka ugu dambeeyay marka halka ku arki doontaan sawirkiisa waxa xalay ku dhacay buurta يا سيرك ماليتا شيقية لا والله طول قادر ماي محانا طول قادرين يا عشور قادة عشور هذا المقعد نبان كلنا نروح بصوت أركا عشور بالقادة هبيراته وبيوي حبك متشرة waxaanu ka hadlaynaa laba qodob waxa weeyaan qodobkii ganacsatada Burco ee qaylinaysay waxaanu isla qaadanay hore uga wada hadalay aanu Sheekh ku wada shiray ee aanu isu dana sheeganay ee serviceka buurta ahaa iyo ilaalinta alaabta iyo dadka waxa ka daran marka buurtu xidhanto waxa yimi wasiiradu way yimaadeen barasaabadu way yimaadeen wasiirka arrimaha gudaha u dambeeya sanadkii ugu dambeysay 2017 faratoon halkaas uu ku xidhmo Sheekh baan u weynay waxa laala wax aanu ku qaadnaba laga waayay waxaan raacinayaa wasiirka halkan xalay ka hadlayay lahaa xildhibaanka sharciga kama sareeyo wasiir adiga sharciga ka sareeyo xildhibaanka inta afka ku taagaysid waxaan se ku leeyahay mas'uul baad ahayd waxba lagu yiri dad shicibaba wax kugu yiri waxaana la aflagaadeynaysa dawladii wax weeynaad noo timaadaba ahayd waxa lalaga ka soo ashkatay inaad xildhibaanada Sheekh u timaadid oo aan TV-ga si degdeg u hadlaa tiraahid bal arrinka sheegaysan xildhibaanada Sheekh baan ka wada hadlaynaa oo aad noogu timaadid ama halka joogtid ba noogu yeedhid oo aad wax la leeyagtid baad lahayd laakiin inta TV qabsatid inaad halka tiraahid xildhibaanadu kama sharciga kama weyna xaq kuma yahayn isbarbar dhigaya in ganacsatada gobolka Togdheer runtii horta waan idin salaamaya Togdheerna qaali bay ahayd geesiyo badan bay Togdheer lahayd laakiin waxa weeye buurta Sheekh waa hunguri cadkii Soomaaliland waa bariga iyo galbeedka dawladda Soomaaliland ee dhalatay 1991 ilaa maanta waxay ka bixisaa ma jirto hadii gaadhi dhaco haduu qof dhinto haduu dad dhaco la bil ka hor ina yar baabuurta ka dhacay inta Togdheer dalxiis noogu timi 2 bilood oo kaamilaan halka ku haynay inamadoodii oo 20 dad iyo xoolaba halka wixii dhibi ku dhacdo annaga ayaa u gurmadna Togdheer Burco iyo wasiirka maaliyadda isna dhawaaq soo baxay waxaanu ka hadlaynaa inaanu cashuurtan la sheegayo iyo isbaarooyin xaaraan ah la dhigtay Sheekh wanaga fursamada inaanu ka hadalno sababtoo ah hadalaan meesha qaban waxa quraan meesha ku qaadnaa hortay waxa weeyaan sida la sheegay waa serviceka buurta cashuur maaha cashuurada dalka waa tii la mideeyay marka waxaanu qaadnaa anagu waa serviceka buurta oo aan ugu talagalay inaanu buurta iyo hantida dadweynaha ku badbaadino iyo shilalka ka dhacay buurta shirkan jaraa'id ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli shil baabuur uu ka dhacay dawga buurta magaalada Shiikh habeenkii xalay iyadoo waliba ganacsatada gobolka Togdheer ay dhawaan ku eedeeyeen mas'uuliyiinta degmada Shiikh cashuuro dheeraada. Saciid Axmed Tamrayse telefishinka caalamiga Star magaalada